kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaar ay meel kasta adduunyada ka joogtaan halkani waa London galbeedka magaalada London waxaanu ka soo tabinaynaa barnaamij khaas ah oo aanu ku eegi doono wada hadaladii ka soo baxay magaalada Addis Ababa ee u dhaxeeyay maamulka Khaatumo garabka Cali Khaliif uu hogaaminayo iyo maamulka la magac baxay Somaliland jaaliyada balaaran ee reer SSC ee beesha dhulbahante ayaa caawa waxay ku shirsan yihiin magaalada London West London ولد السلام يا كلجين شركة عاوة إن سوني من هالكن قلبيت كلندن صدق قطب على هالأيام صدق هذا قطب واحد كيهين إن لا تغيروا شركة أي كوباقين اسمه ده إن لسوي ما دبوه هال إن كوحدة علي خليف ودرس هذا الدسها هالكن لقموشي إن عندنا وكيل كاهن عندنا مثلين إن لا تغيروا قرب كبد بعد ذا خاتمه أنا هذا واحد دوني جاي عن كهلو كواحد أنو هربوده كي على خليف قليد هتسيود يهين وادد قرب شوجا وادد حاسس كودي عرور تودو أي دبد شوجان ددول كي دقن بماع ددول كي حكي على بماع وحكي كرد عن أي سامين اسم وادد وكوحد دنتودو وردية انتو هذا بدن waa Somaliland horjoogooda Cali Khaliifna weyn wada garanayna waa nin Somaliland waa ninkii 1999 wax ka seexay baaqi ka soo baxay burco ee SNM-ta ee ay sheegeen waqooyigu inuu ka go'ay Soomaaliya inta kale waa ninkii ka qayb galay shirkii Boorame lagu doortay cigaal ee sharaxay madaxtinimada Somaliland doontay wax cusub Cali Khaliif noo sheegayo ma jirto hada waxaba igu maqaala in laga sugayo magaalada Hargeysa waanu ducaynaa inuu dhaafo wuxuu doonayo ka helo halka horta taasi waa taa sheekay yarna wadiin sheegaya aan dhex gelinayo bariba nin busta iyo bud wata wuxuu soo hormaray masaajid laga xadraynayo xadradii budaaqada keega ولا جعلست قدوه قالوا بركي بستيه بودكت حضرتي بوكا قيم قال الله انتو حضريني ايا بستيه للبودي هادو حضرتي مركي دماتي ايو سير بستيه هاقي قادو سبستيه ما يالبا بركي بولبودو دادكي مساجدكا ايو يردو يستاقودي ار والله يتيحلون inaan idin ka bixin bustahayga wala keenay mooy shawcaaw dhan waxa loo higiyo hamlaha bustahayga yahay hada waxa loo higiyo hamleeyahay Cali Khaliif iyo kooxdiisu dhulka inta SNM tahay sameeyaan inta kale in la qabsado wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusub lama qabsanayo dhiig badan bay u horeen dhiig badan bay u daadiyeen haddana waa u daadinayaan sidoo kale gudoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka degmada Beledweyne iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kaga dhacay way wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha gobolka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusub dabkii lagu xanuunsado faruuq kuma daraalaan maamulka degmada Beledweyne iyo sidoo kale maamulka degmada Matabaan ayaa waxa warbaahin u aqriyay مسؤول كتير سنة البلدوينة سنة ضربة ملموس ضربة مثل نجوا أمريكا يورش قوة أوتكا رواد بودجاي حرانة اعتراف دين كيني تمالي مجعابة مال بيوم مجعابا وحي ماشي يلبح حنطب صدا ودتك ودكباهين هذا سنة كضمي متكلا وتقول أنا اعتراف كيني محمد كينا مال بيودي وحي ماشي يلا لبوده نجمع البحر سيدا درتد واعتراف كان دون سنة لحية لا تصنع الشيء يصير أنا قعنت كوهينا والصوماليا قعنت كوهيسة من هليسان وحل قاري وقت دكي ندرون توشيق الهيدين تمر كي عروتي مقرطان إن آتيهين قبل الصوماليا كترسل waxaan sheegayaa horta marka ugu horeysa ismada dhulbahante ee ku shiray higlada iyagoo ah ismadii dhulbahante oo matala shirka ay ku baaqeen waa taageeray waana taageersanahay
danta dhulbahantaana ku jirta waana madaxii ugu sarreeyey ee ummadda shacabka dhulbahante waa taageersannahay midda labaad waxa weeye kooxdaa tagtay hargeysa waxaan filayaa way og yihiin qolada somalilan cali khaliif 1991 waa la joogay hadduu wax ku biiranaya markaasay qaadan lahaayeen waxaan leenahay qolada aanu dariska nahay aanu ehelka nahay khaladka aad ku jirteen aad ka gasheen sool iyo sanaag iyo cayn iyo dhulbahante ee gardarrada ah dhulkooda ku soo duusheen waxaan leenahay horta bal marka horeysa ka noqda oo ka waantooba dad ehel hodariseen nahay waa midda labaade dad marba nin been idin sheego wax idin matalo been idin la yimaada waxaan idin filayaa inaanay dan idin ku jirin idinkana walahawgii hore aad ku jirteen miduu ku soo koreemayaan waxba idin kordhin maayo arrinta inaad ka noqotaan oo ka danaysataan baa idin ka fiican oo aad isku tashataan yaan idin leeyahay dhammaan waa salaamaya jaaliyada halkan ku shirsan inta dhageysan doonta ama maqli doontana waan salaamayaa waxaan halkan doonayaa inaan ka soo dhoweyn dhinac kasta le aan uga muujiyo go-aanka ay soo saareen isimada sool sanaag iyo cayn qodobka labaad waxaan doonayaa inaan sidii horeba loo caddeeyey cid walba ugu caddeeyo kooxda uu hogaaminayo cali khaliif ama adisababaha ku shireen ama caynabaha ku shireen ama hargeysa iyo jabuutiba ha tageene inaanay cidna materin oo jaaliyadda tan sool sanaag iyo cayn aanay wax maandhayda ka haysan sidaa isimadu u sheegeen sida dadka waxgaradka iyo wanaagga jecela ay u sheegeen taasna waxaan doonayaa iyadana inaan cod dheer ku idhaahdo qodobka saddexaad garabka badbaado khaatumo isagana waxaan halka ka caddaynaynaa inaanu taageero u hayno taageero dhaqaale ah taageero cod ah iyo taageero wax kasta dhinac kastoo loo baahan yahay isagana inaanu ku garab taagannahay baan halka caddaynayna waxaan halkan ku darayaa intaa iyadoo wakhtigu iska kooban yahay oday cali khaliif dhowr goor baan maqlay isagoo leh hargeysa uma socdo hargeysa aadi mayno wax ka dooni maayo sheeka soomaaliga waxaa la yidhaahdaa nin baa beri gabadh shukaansaday shukaansigii gabadhii markuu muddo ku waday wixii uu doonayey bay u samaysay markay danahoodii kala dhammaysteen bay waxay tidhi waryaahay arrintaa cidna ha u sheegin anigu ku sheegi maayo yaan 5 bilood ku sheegin bay gabadh buu ninkii yidhi cali khaliif in badan baa dadku sheegayeen laakiin dad badan baan dhegaysan hadda annagu waxaan leenahay cali oo ku sheegi maynee adigu ha sheegin maadaama aynu horta halkan dee gole joogno oo aynu saxaafadeed qabanayno marka hore waxay la tahay anigu inaynu ka bilowno xilli adag baa Soomaalidu dhib ku jirtaa abaaro iyo colaado iyo dagaalo sokeeye iyo waxba ka socda wadanka badidiisii inaynu bal dee faataxada u aqrino u duceyno Soomaalida in Ilaahay ka saaro waxaas waxaan kaloo markaan u soo noqdo siyaasadeena localka ah saddexdan qodob ee aynu hadda shir saxaafadeed ku soo saarnay markaan qodobka koowaad ee ah inaynu taageerno shirkii ismadu ku baaqeen buuxoole inaynu taageersanahay kaas baan dee idinla qaatay oo idinla cadaynayaa waxa weeye dadkan gobolada Sool iyo Sanaag degan kulli aniga ogaanshaha waxaa ka dhaxeeya dhulka iyo ismada iyo taladooda marka ninka intuu meel ka hadlay yiraahdaa ismadu ma talin karaan ama siyaasadda nooga baxaan ama way waxa noo goyni gabayada waa la iga badiyaa gabi sayidka bari nin gantaal iyo wax soo tuuray baa walba xogaa gabayga oo baan sheegay ninka yiraahdaa talada reerka ismadu waxa laga weydiin maayo de isaga og meesha uu marinayo arkaa tan kale qoladan khaatumo odayga magaca leh uu hogaaminayo iyo raggan uu dirsaday rag badan baa jira iyo dad badan oo bulshada badideeda ah oo weligood aan wakiil ka dhigan dadka qaar baa mar xogaa malaha la socday inta markuu imka badheeriisi cadaaday waa la iskaga hadhay ila tahay inaanu cambaarayno hafarka beenta ay naftoodana hafreen iyaguna dadkan hafrayaan
siyaasadda qura ee ka iman karta waa hadalka Khaatumo iyo Somaliland waa in Somaliland lagu biiro waxa uga qurux badnaan lahayd iyagu yiraahdo hadca Somaliland bay noqonaynaa maxay idin la tahay marka inaan taan waa cambaaraynayna bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Kaysa la yiraahdaa magacayga hadaan soo koobo waxa rabaa inaan ka hadlo anigu dhibaatada ay haysata Soomaaliya oo dhan haysata ummadda Soomaaliyeed waad aragtaan siday u burbursan tahay siday badaha ugu daadanayaan sida xabsiyada iyo meel walba ay ugu xiran yihiin waxaana waxa keenaya waa xagga maamul la'aanta iyo dawlad la'aanta inagu khaas ahaan jaaliyadahan waxaynu ka mid nahay beelaha ay ka haysata dhibaatadu xagga nabadgelyada ama beelo kalaba haystaan waxaanu 100% ka soo horjeednaa wada hadallada ay fureen garabka Cali Khaliif iyo Somaliland ka soo horjeedkaas oo ku salaysan dadku waxay wax ku heshiyaan markay wax ka midaysan yihiin waxa jira wax badan oo beelahani isku khilaafsan yihiin waxa kamid ah Soomaalinimada lafteeda kamid ah waan nin aaminsan inuu Soomaali ahayn iyo nin aaminsan inuu Soomaali yahay nin aaminsan qof Soomaali hadduu dilo inuu mujaahid yahay iyo nin aaminsan inuu qofkan uu yahay qof loo isticmaalay Soomaali burburinteed qof cadowga Soomaaliyeed aan isku cadow ahayn isku heshiis ahayn ma aaminsan inay wax wadaagi karaan anigu waxaan aaminsanahay marka dadka beelahan Sool iyo Sanaag iyo Caynana dib u midoobaan inay dib u shiraan shirka isimada la taageero isimaduna ay daacad ka noqdaan oo waxa iyagu ay ku baaqeen ay Ilaahay dartii u sameeyaan oo aanay la bari furtayn wixii ka soo baxana ay ku fuliyaan waxaan kaloo halkan ka taageerayaa anigu garabka soo haray maamulkii loo oran jiray Khaatumo ka soo haray ee wali iyagu u taagan masiirka ummadda ee la baxay badbaado Khaatumo garabka aad iyo baan 100% baan taageerayaa waxaan kaloo halkan baa uga dirayaa jaaliyada meel kasto ay joogaan ama dibadda ku noolaa Mareykanka joogaan Arab Yurub in la midoobo xaaladan adag laga midoobo dib loo shiro wax la iska yiraahdo xaaladan kala guurka isdhiibka ah iyadoo aynu taaganahay saalayno dhiibaya aynu ka midoowno aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Cali Qambi waxaan aad u taageersanahay qodobada halkan ka soo baxay saddexdii qodob halkan laga hadlay ka soo baxay ayaan aad u taageersanahay intaas hadalka xigmadiisa ku dhan yahay waxa kaliya ku dareeyaa waxa weeye arinta maanta reer heshiisi meesha ay taagan yihiin ee qof walba waa ka warhayaa dadku iyadoo isu dhaqan yahay oo maartay aan wax dhibaatay dhaxoolin ayaa nin inoo yimi qurbaha inoo yimi ninkaas oo yidhi maamul baan idin sameynaya waa ninka Cali Khaliif la yiraahdo ninkaas arintu yimi waxay dagaalka kalshaala markuu dhacay inuu isiraad dilaash dintaas halkaas uu inaga soo galay markuu nin dadku yaqaanay buu ahaa runtii dadku aad u diidanaa ninkaas wuxuu ku dhawaaqay in uu isu keenayo dadka wuxuu qabanayo dhulka uu xoranayo ku dhawaaqay wadogtiin wixii 91kii markii dawladda Soomaaliya ay dhacday shirki Barcabo ka qayb galay kii Booram ka qayb galay nin waliba halka ku tirsan buu ahaa cida la ciiday matalaani wax ka jira toona marka waxaan leeyahay dadka maartay DRCC arinta ka digtoonaadeen especially dadka reer Bohol maanta dhulkii kale oo dhan maartay ninkaas waxa weeye gacanta ka soo saaray dadku isku soo diray maanta idinkaan noole bal ninkaas isaga ilaalin lahaydeen wanaad ka fikirtaa waa salaamantii assalaamu calaykum anigu qodobada shirka soo baxay waan runtii sabir garaysanahay waan raacsanahay waan ayidayaa qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan shirka ay isimadu u baaqeen reerka dhulbahante ee Bohol lagu qabanayo in aad loo sabir gareeyo runtii aadna looga shaqeeyo ayaa loo baahan yahay dhaqanku ama isimadu waa madaxa reerka in badan iyo qarniyo badan ay arintan ka shaqeynayeen ku soo jireen waa arin soo jireena waa arin ummadda oo dhan isla taqaano cid cambaarayn karta ama wax ka sheegi karta ma jirto waa laga yaabaa waxyaabo yar oo khaldan inay jiraan laakiin waxyaabahaas in isimada oo dhan lagu cambaareeyo ama wax laga sheego ma istaahilaan dadkan durbaanada ku tumaya ee isimada wax ka sheegayana
waa dad wax magarataa oo si khaldan wax loogu sheegay kooxo khaldan baana wata marka waxaa loo baahan yahay isimada in la ixtiraamo la soo dhoweeyo lagana shaqeeyo lana garab istaago shirka aynu ku baaqnayna in sidii u fuli lahaa isimaduna ay ka shaqeeyaan jaaliyadaha qurbaha jooga ama dibadaha joogaana inay ka midoobaan arrintaas oo shirkaas siduu u dhici lahaa si talada dhulbahantee meel loo dhigi lahaa inay ka shaqeeyaan ayaa loo baahan yahay oo laga shaqeeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo salaamaya dhammaan dadkan shirkan ballaaran ka soo qayb galay runtiina aad iyo aad aan ugu faraxsanahay qodobada iyo aragtida ay meesha ka soo jeediyeen. Waxaan sidaasoo kale sidii raggii iga horreeyayba ay u taageersanahay shirka isimada in beeshu ay isu yimaadaan oo meel isugu yimaadaan. Qodobka labaad waxa weeye qolada gruubka Cali Khaliif oo anigu waqti aan waqtiyadan ahayn aan u sheegay meesha uu socday iyo ujeedada uu yahay. Runtiina gruubo ma jiree cid buu marba ninkii uu doono ayuu dirsadaa. waxaana waa fakar uu leeyahay isagu shakhsiyan fakar uu leeyahay weeye fakar cid kale ay wax ku biirisana maaha waxna kuma biirin karto meesha uu socdo buuna tegayaa taasna waxaad moodaa inay ku isticmaaleen in media yar iyo clip yar oo ay iska duubaan oo ay yidhaahdaan khaatumaanu nahay oo Cali Khaliif baanu taageersanahay taas waxaad moodaa si afduuba inay ummad dhan oo jirta oo ballaaran oo waxgarad leh oo aqoon-yahan leh oo siyaasi leh oo maxaa dhahdaa madax dhaqameed leh in groupka yar hadday ugu badnaadaan ba 8 nin ba aan ka badnayn in ay u isticmaalaan media marka waxaan leeyahay taasna sidii raggii horeba sheegay dadkaasi daday matalaan maaha dad yacni qaab maafiyeyn oo kale ayaanu anugu arkaa oo ah yacni media iska duub maalin walba 3 casho marka la joogo wiigiiba meel ka soo baxa hadday la gelayaanna oo ay Somaliland tegayaanna aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa oo ayna dhaafaan dhibka waayo wax noo faya qaba ayaan jirin caaqiladii baa la iska hor keenay garaadda la iska hor keenay ummadii baa la iska hor keenay qabaa'ilkii baa la iska hor keenay waxa kale oo wax laga xishooda in yar oo gruuba ama jifi ama cid yacni gaarihi in ay damacdo in beesha dhan ilaa iyo sanaag ilaa iyo reserve area degan in ay yidhaahdaan annagaa matalayna ama shakhsiyaad arrintaa iyada waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan la qaatay fikirka iyada odayaasha sida ay u sheegeen labadaa qodob aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ayidsanahay qodobada saddexda ee halkan laga soo saaray shirkan ka soo baxay sidii odayaashii ugu horreeyay u sheegeen hadal hore loo yiri markaa inaan ku soo celiyo macna ii sameyn maysa saddexda qodob ee ay sheegeenba waan ku raacsanahay waan ayidsanahay taaliyadii UK warweynu burburnay ma jirno nin waliba goonidiisu jooga afarba maalin bay meel istaagtay oo television kamarad soo dhigtaa ama labo war aynu isu nimaadno waxba iskuma hayne xitaa qolada reer Amarka waxay oran jireen naar galaasay tiin baday war haddaynu xitaa Hargeysa wada galayno aynu isku raacno aynu istiijidano majoritigeenu hayna jiideene aynu isugu nimaadno ka wada hadallo waad mahadsantii bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn jaaliyadda khaatumo jaaliyadda SSC meel kastoo adduunyada ay joogto waa salaamay ama khaatumo ha ahaato ama SSC ha ahaatee salaan kadib waxaan ilaahay qaadira ka bareeyaa abaaraha iyo dhibaatada waddankeenu ku habsada ilaahay inuu naga dulqaado intaa kadib halkan baaqa caawa laga dirayo jaaliyaddan oo ay isugu timid aniga oo la afkaara oo ayidsan in aan taageero oo siday u kala horreeyaan weliba aan u taageero marka u horreysa isimada baaqay soo saareen ee ay ugu baaqeen in beeshu ay isugu timaado shirweyne waa ayidsana tixigta kooxdan Hargeysa aaday Ardisaba wada hadal ku gashay
anigu ma cambaaraynayo waa taageersana waxaan ku taageersanahay 4 qodob 4 qodob qodobka u horeeya waxa weeye cali iguma cusba inuu Hargeysa ku socdo oo markii horeba waan ogaa anigu Hargeysa inuu ku socdo markii uu soo wareegay koonfur ku soo hangoobay taleex socod ka soo bilaabay dhulku ku soo wareego buuhooda uu ku dambeeyay meesha uu ku sii socda Hargeysa inay tahay waan ogaa sidaa daraadeed de wax cusub iguma aha waan taageeraya waxaan ku taageerayaa dadka maanta la joogo dhibka iyo culayska uu ka dulqaaday waan ku taageerayaa waan taageerayaa waxaan ku taageerayaa kuwa uu tagayo culaysku la tagayo waan taageerayaa waxaan ku taageerayaa raggii uuna kala qaybiyay ee aanu kala afkaarta ahayn ee aanu kala dhaqaaqnay ee cali aan inaba marsiin waayo war cali meel buu u socdaa ee ka joogo niyo aynu isku mabda noqono hadduu maanta ii soo noqday oo maanta aan isku aragtinahay taana waa ku taageerayaa cali iyo gruubkiisu dad maanta matala oo bulshada intaa leeg iyagu u horkaca Hargeysa ma aha waxay gooyaanna waa la ogyahay shirkaas intii uusan cali iclaamin nin kasta oo magac loo beesha ka tirsan halkiisii xuluul kula sameeyay inuu afkaarta ay araada la qaato oo Cismaan Badow ka mid yahay nin kasta oo xishoonaya waa diiday hawsha ayada inuu galo cali halku u socdo isaga yiraahdo war ilaahay idin baariga cali waxaan ku leenahay barakayso cali oo Hargeysa wax kaaga horeeya hasaati mid baan kula dardaarmaya waxaan kula dardaarmaya Hargeysa in badan baa ka maqli jiray adigoo yiraahdo war wax igu filan ma yaale waa runtaa wax kugu filan ma yaale maalinta wixii kugu filaa aad weydo in xabsida ka daba tagin طبعا anigu sidii dadkii hore ay yiraahdeen waxaan support gareeyay ama support gareynaya ama taageeraya shirkii higrada ahaa ee ismada ay ku shireen baaqi ay ka soo saareen ee ay ku diidayeen qodobadii Arsaba iyo shirkii kale ay ku baaqeen inuu buuhoodle ka dhaco oo halka dhulbaanta isugu yimaado oo waxay doonayeen iyagu ku tashadaan qodobka labaad ee doonayaan ka hadla waxa weeye waxaan jaaliyada SSC meel ay joogto aan ka codsanayaa inay joojiyaan character assassination-ka ay ku sameynayaan ismada inay ismada ayda ka daayaan anigu ma dhawto waxaan arkayo TV-da ka maqlayay madaxda Somaliland oo isu marisay hawada hadallo waxa markiiba u kacay oo kala qabtay oo kala hagaajiyay ismada dhaqanka ismadeenu kuwaas oo kale ka mid yihiin marka waxaan ka codsanayaa waxyaalahan xunxun ee aan imaka la duubay ama aan aragnay ama aan maqalnay ee aad ka sii deeynaysan TV-yada ama qolalka aad ka sii deeynaysan please inaad joojisaan waayo ceeb buu noqonayaa ism id bedeli kartaa oo le waanu ka qadnay kalsoonideena ma jirto reerkiisunba ka qaadi karaya meel ilaa hadda isugu yimaadeen reerkiisina oo yiraahdeen hebel baanu ka qaadnay isnimadeena lama jirto marka aad iyo aad waxaan ka baryayaa inaad joojisaan character assassination-ka aad ismada ku sameynaysan please anigu hadalkayga intaas ku soo koobaya بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الرزاق خليف صلحان waxaan halkan ka taageeraynaa oo halkan isugu nimi oo ay sanahay awalaha shirka odaynisimadu ay ku baaqeen ee ka dhici doona magaalada Buuhoodle insha Allah waqtiga ku haboonaato waxaanu kaloo halkan ka taageeraynaa badbaadada jamada badbaadada Khaatimo oo ah jamhad ay qof walba waajib ku tahay inuu taageero oo deegaanka SSC ka tirsan waxaan kaloo halkan aanu ka soo horjeednaa oo aanan de wax la qaadan kara aan ahayn qolada falaagada ah ee jecel Hargeysa inay aadaan bismillaahi raxmaani raxiim golaha waa salaamaya waxa la yiri wax waliba cusub ay leeyihiin de cusubkii hadalka hore loo yiri run ahaantiina waxaan isku wada raacsanahay buu ahaayo de hadal laga tashaday waxa la yidin ma oran waayo qodobaanu isla falanqaynay isla meel dhignay ku gudoonsanay bay odayaashu noo sheegeen
keliya waxaan kaloo ku darayaa dadka reer SSC in ay midoobaan oo u midoobaan dantooda waa ognahay cid taageersani ma jirto in Somaliland maanta la raaco shirarkan hadda sababa ka soconaya laakiin dadka waxaan leeyahay dadku yay niyad jabin waxa ay aaminsan yihiin banaanka hawlo soo baxeen fikradooda ha dhiibteen ficil ha u bedeleen haddii aanay taa la iman waxa ka guulaysanaya cadowgu waxa uu doonayo baa u hirgelaya